wax kasta tallaabo kasta oo sharci darro ay xukuumaddaasi qaato oo ka daba tegaynaa ganacsatada waxaan halkan uga sheegaynaa waxaanu samaynaynaa guddi madax bannaan guddi xisbiga kulmiya ee waddaniya oo daba gasha intii xukuumaddan muddo korintaa ku jirtay waxa ay iibisay ee sifaha sharci darrada ku iibisay waa la soo diiwaangelinayaa nin kastoo ganacsadiba maanta ha ogaado yaanu odhanin shalay maan ogeyn beritoole markay xukuumaddaasi timaado waa lala xisaabtamaya waana laga daba tegaya wax kastoo xilligaa kala guurkaa la iibsaday cid maanta markhaati ka ayna ma jirto xukuumaddu iyadoo oo intay soo bandhigtay sakada guryaha iyo waxaa la iibinayaba marnaba ay tiri waan iibinaynaayo public tender inta la mariyey halkaa la shaaciyey laga qayb galay si xalaal cid ugu guuraysatay dadka ganacsatada ay ka ganacsan waa dadka danyarta ah waa dadka tamaandhada iibinaya waa dadka wax kastoo ay soo waaridaan iyadoo quality control aan laga marinin wax kastoo ay keenaan waa kuwa ka iibsada waa kuwa ay ka dhargeen waa kuwa ay fooqa ka dhisanayaan waa kuwa ay hantida dadka ka dhaxaysa ay ku iibsanayaan ganacsatada waxaan leeyahay waar xoolihiinna haddii aad sifo xalaala aad ku kasbateen oo aad ummadda ka shaqaysateen oo xoolihiinniyo saxa yihiin waar hantida ummadda ka dhaxaysa iska gelinina guddida dabagalka hantida qaranka waxaan waa hanti ummadeed mas-uuliyad baan ka saar xildhibaanati waxaa laydinka rabaa oo xisbi ahaan aan idiin soo jeedinaynaa inaad u yeedhaan cidday khusaysay wasaaraddii ay khusaysay dadka ay khusaysay ee la xidhiidha hawshani inaad u yeedhaan su-aalo ka weydiisaan ummaddanna waxaydaa u soo celisaanoo bismi illaahi raxmaani iraxiim waan salaamaya warbaahinta madaxa bannaan leh waxaanu doonaynaa inaan 2-3 qodob aynu kaga hadalla halkan waxaa in muddo aynugu soo noqnoqonaysay qayladhaan ka imanaysa shacabka somalilan ee u badan danyarta taas oo ay ka cabanayeen in meelihii danta guud ahaa ee ay ku jireen ay dowladdu sifo sharci darro ah ay cid ugaga iibiso ugu horrayn horta dowladdu xaq bay u leedahay inay wax iibiso dhulka dowladdana iyadaa ka mas-uula shacabkeeda danyarta ah iyo keeda dhargeyna iyadaa ka mas-uula waxay marka ay iibka ay hantida ummadda ee ay mas-uul ka tahay ay iibinayso waxay maraysaa sifo sharci ah wixii aan sifadaa sharciga ahayn aan loo marino waa xaaraan waana dembi waana sharci darro waa nidaam darro waa qaanuun xumo dowladdu waxay wax ku iibin kartaa oo ay hantida ummadda ay ku iibin kartaa ay faraha ku hayso inay u marto sifaha sharciga ah ee xeerasheenna iyo dastuurkeenuba u qeexay oo ah inay mariso public tender waxa la yidhaha si daafuran ay u soo bandhigto waxa la iibinaya la garanayo si madax bannaana ummadda ama ganacsada ha ahaado ama mid wax soo amaade ha ahaado ama mid dibadda ka yimid ha ahaado ama mid maalgashanay ha ahaadee uga qayb geli karo oo u iibsan karo markaa cidda gaadha wixii loogu talagalay ama lagu qiimeeyey waxaynu ognahay xukuumaddan in aanay marnaba waddadaa u marin hantida ummadda ee gacanta ku hayso inay u iibiso marnaba aanay sharcigaa waafajinin maynaan arag cid maanta markhaati ka ayna ma jirto xukuumaddu iyadoo oo intay soo bandhigtay sakada guryaha iyo waxaa la iibinayaba marnaba ay tiri waan iibinaynaayo public tender inta la mariyey halkaa la shaaciyey laga qayb galay si xalaal cid ugu guuraysatay weliba wixii la siiyeen ummadda wax loogu qabtay kana muuqato miisaaniyadda dalka iyo bankiga lagu sugo maynaan arag xukuumaddan tii ka horreysay intii ay fayoobayd ee ay miyirka qabtay ay waxay dadka ugu soo ololeysay ay islahayd wuxuun ka run sheeg waxa ay iibisay wasaaradda duulista iyo hawada waa markhaati madoon waa lagu tartamay sifo sharciyaa loogu tartamay ummadduna way ogeed waana lagu guulaysto ganacsadaha degan ayaa ku guulaystay maca lacagteed waa la garay wuxuu ku guulaystay cid ku buuqday cid ka soo horjeesatay cid diiday midna may jirin waayo waxaan is lahayn waajibkoodii bay guteen wixii intaa ka baxsan oo dhan waa xaaraan weeye xukuumaddan waxaynu dooranay inay ummadda u adeegto inay dayaca ummadda ka biiso inay bulshada bara u samayso dadka danyartaa ee dhibaataysan ee cashuurta ka qaadanayo inay bara ay degaan ay u samayso wax ku soo kordhiso looma dooranin umana joogto wixii ummadda ka dhaxeeyey ee harsanaa
ingiriiskii iyo dowladdiisii aad bara ka hadhay in iyadu dib u xaraashto ceeb iyo foolxumay ku tahay 22 sano jirnaa qarankaa waxay ku soo kordhiyeen ma jirto wax danguuda ummadda intii dowladihii hore jireen ee la abuuray wax ka dambeeyay oo la abuurayna ma jirto bal waxay sameynayaan qolqolkii yaraa ka hadhay in sifa aan sharciga waafaqsanayn ay maanta fareen uga sii baxayaan ummaddu waxay wada leedahay waa waxa danta guud la yiraahdo ee ka dhaxaysa waa iskuulada waa saldhigyada waa garoonada waa meelaha bannaan ee dawladdu leedahay waa shacabka haddii loo baahdo waxa ahayd in sifaa sharciga marnaa soo maro waxaan arkaynaa maanta leenka biliiska oo xuduntii magaalada Hargeysa waa fiyuugi magaalada Hargeysa haddii laga saarayo dadka jilicda salay dhibaataysan ee qaar baaraleyska yihiin qaar curyaamiinta yihiin qaar ay gaajada guryaha kala soo bixi kari laayihiin haddii laga saarayo oo la damcay waxay ahayd in laga dhigo wax ummadda ka dhaxayso ummaddu wada leedahay wax ummaddu wada leedahay in laga dhigo oo wada aragtaan basaskeeni magaalada Hargeysa sumcad darrada ku hayaan meel ay taagtaageen gidaarada taagtaageen wada aragtaan in meel la isugu keeno in wax ummadda anfaca oo ka dhalanaya iyo ka gurguuranaya iyo ka tiiqtiiqsanaya xukunka ku faanaya iyo ka tarandacay ee dhergeed taajirka sheeganaya wax ka wada dhaxeeya in looga dhigaaba ahayd waa ka xunahay waxaan leenahay xukuumadda war Allahin ka cabsada war waxaan waa la idin weydiinayaa war looma baahna wixii ummadda ka dhaxeeyay in sifa sharci darro ay gasho taayada xukuumadda kaga baxay wayna ka waantooda ganacsatada dadka ganacsatada ay ka ganacsan waa dadka danyarta waa dadka tamaandhada iibinaya waa dadka wax kasto ay soo waaridaan iyadoo quality control aan laga marinin wax kasto ay keenaan waa kuwa ka iibsada waa kuwa ay ka dhargeen waa kuwa ay fooqa ka dhisanayaan waa kuwa ay hantida dadka ka dhaxaysa ay ku iibsanayaan ganacsatada xalay war xoolihiina haddii aad sifa xalaala aad ku kasbateen oo aad ummadda ka shaqaysateen oo xoolihiina iyo sax ay yihiin war hantida ummadda ka dhaxaysa iska gelinina war ha ku bedelinina dollarkiini oohinta danyarta dayacan ee idinka baana caawimo ha ku bedelinina inaad kaga oohisaan xoolihii Ilaahay idin siiyay waxaad heli kartaan wadan bannaan oo iibsataan oo hodan ka dhigtaan oo xaafada ka dhigtaan maxaa idin gelinaya wax ummadda ka waalan iyo ka biyirka qaba iyo ka miskiinka iyo ka dayacan ka dhaxeeya oo Ilaahay qiyaamaha idin weydiin doono culimadu masaajidada kaga hadashay weydiin bayaamiyeen cidda gasha waa indhalaan waa naar ay u bareeriso waar ka waantooba ummaddiina u naxariista u dhibriya meel wanaagsan idinku doonta caawiya ku meesha ku jira iyaga yaa waxba laga day waxaa kaloo halkan kala hadlaya golaha baarlamaanka ee ummadani soo dooratay baroorana si halka fadhida gudida dabagalka hantida qaranka waxaan waa hanti ummadeed mas'uuliyad baa ka saaran xildhibaanadii waxaa la idinka rabaa oo xisbi ahaan aan idin soo jeedinaynaa inaad u yeedhaan cidda khuseysay wasaaradii ay khuseysay dadka ay khuseysay ee la xidhiidha hawshani inaad u yeedhaan su'aalo ka weydiisaan ummadana wixii aad u soo celisaanoo intaad golihii soo fadhiisataan ummadda aad u gargaartaan oo gurmad aad u noqotaan golahana taasaan faraya xisbi ahaan annagu xaaladda kala guurka ah intii ka dambeysay 5 sano madaxweynaha la doortay sharciga ahayd intii muddo kordhintu ay ku jiro waxaan u aragnaa inay tahay xaalad kala guur xilli doorasho wax kasta talaabo kasta oo sharci darro ay xukuumaddaasi qaato oo ka daba tegaynaa ganacsatada waxaan halkan uga sheegaynaa waxaanu samaynaynaa guddi madax bannaan guddi xisbiga kulmiya ee wadaniya oo daba gasha intii xukuumaddan muddo kordhinta ku jirtay waxa ay iibisay ee sifaa sharci darrada ku iibisay waa la soo diiwaan gelinayaa nin kastoo ganacsadiba maanta ha ogaado yaanu odhanin shalay maan ogeyn beritoole markay xukuumaddaasi timaado waa lala xisaabtamaya waana laga daba tegaya wax kastoo xilligaa kala guurkaa la iibsaday oo lagu iibsaday sifa sharci darro ah oo aan tandharkaa la marin oo aan la baahin waa laga daba tegaya iyadaan beri ka qoomamoon liis baanu soo saaraynaa liiskaasi shaqada ay qabanayaan waxa weeye hantida ummadda si ay u ilaalin lahaayeen
shay kasta halku galay loo daba socon lahaa waxa kale oo aan xisbi ahaan aan soo jeeday marka hore inaan waayna ganacsatas oo noo ka jooga waxa uu muddo haddii aad ka joogi weydaan annagu waajibkana saareeyay waxa weeye bulshada Somaliland iyo shacabkeeda inaan u sheegno cidda iibsanaysa cidda ay tahay qofka uu yahay liis baan samayn doonaa 10 meelood ee imaka systemka ku jira la hayo ee socda hawshoodu meel kasta cid iibsatay haddii warshada kabista tahay haddii tigataara tahay haddii tan socoto tahay haddii tahay waxa la hadlayo liis baan soo qoraynaa ganacsatada ku suntan ee ku magacaaban ee hoosta ku jirana waxaan samayn doonaa inaan anagu shacabka u sheegno waa nimanka wixii niibsanaya waa nimanka noocaasa intaana laakiin taas sameyn waxaan uga digaynaa inay arrinka ka noqdaan iyagoo ilaahay kaga cabsanaya guud ahaan shacabka Somaliland waxaan u soo jeedinayaa waad aragtaan dhibaatadeena haysata xukuumadeena waad aragtaan waxaad la tiicaysaan dhaqaale xumo sixir barar aafa siyaasadeed aafa maamul xumo ayaad la tiicaysaan ilaahay waxaan idinka baryaynaa ilaahay taa uu xukun ka khayr qabay noogu bedelayo in ilaahay samirka idin adkeeyo calashana idin adkeeyo laakiin maalinta timaado inaad waajibkiina uga gudataan si la jecel leh oo wadaninimo oo muwaadiniinimo aad maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu